السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada liiskii maanta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo magacaabay iyo beelaha ay ka soo jeedaan mas'uuliyiintaasi maanta xilka loo magacaabay wasiirka wasaaradda amuraha dibadda Soomaaliland iyo iskaashiga caalamiga ah Ciise Kayd Maxamuud Raagsaale waxa uu ka soo jeedaa beesha Arab gaar ahaan Samane Xasan Maxamed Cali Gaafadhi wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka uu habar jeclo gaar ahaan Biciide محمد حاجي عثمان جامع وزير وزارة هرمانية بيرها وعرب جارهان وريادا عبد الرزاق إبراهيم أحمد عطاش وزير وزارة جديد كهرمانية جديدك ورولبهات وأنا بحر سمين عبد الرزاق علي حسن محمد جامع وزير وزارة هرمانية بيها وهبرت شعله وأنا أحمد فرح علي مريحان عبد الله فرح عبدي موسى وزير وزارة معدنة يتمرت وسعد موسى جارهان عبد الله سعد شيخ عبد الرزاق حسين علي الباني وزير وزارة دينتي وقفت وهبر يونس وانا سعد يونس عبد الرشيد حاج دعالي قبي وزير وزارة دليرة عيارها ورلبهانت وانا ريها قرر عمر علي عبد الله بدي وزير وزارة قرشينتا يهرمانيتا قركا وسمرون وانا محمد عسي عبد الله ابو بكر عثمان ويوسف وزير وزارة هولا دولكا iyo guriyeynta waa habar awal gaar ahaan waa Ciise Muuse عبد الله عبد الرحمن عثمان ووزير وزارة horumarinta maalgashiga iyo warshadaha waa samaroon gaar ahaan waa habar cafan baashaca Umar Cabdi wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waa habar jeclo waana Cimraan Liibaan Yuusuf Cismaan Xuseen wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta caafimaadku waa Arab waana Subeer Cali Rooda Jaamac Cilmi Cabdulle wasiir ku-xigeenka wasaaradda horumarinta maaliyaddu waa habar jeclo gaar ahaan waa balagaadan ama waadan madoobe Cabdiraxmaan Cali Cabdi Cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanku waa habar Yoonis gaar ahaan waa Muuse Ismaaciil موسى إبراهيم يوسف سلف وزير كحيانك وزارة الجناعسية دلحيسك وعيدا قال وانا غير قبدون عبد الله حسين محمد علمي وزير كحيانك وزارة أرمها جودها جارهان أمرجو وهبر أول وانا عيسى موسى عبد الناصر عيديد محمد فارح وزير كحيانك وزارة أرمها جودها جارهان أرمها قبل ذي دولة هو سوى عيدا قال وانا الدم وداجو مهدي عبد الله عثمان محمد وزير كحيانك وزارة عدالته وجبويه سعيد أحمد جبريل بحل وزير كحيانك وزارة هرمانية بيها وسمرون عبد الحكيم سعيد موسى عبدي وزير كحيانك وزارة وحبرشدة يسينسكو وهبر أول وانا سعد موسى أحمد حسن نور أحمد تاجر وزير كحيانك وزارة قرشينتا يهرمانية قرنكو وطلشعله محمد أحمد محمود عود وكيل جمهورية الصومال لان ذلك إثيوبيا وأرب عبد الله علي عبد الله داهر حرسي قدوميها بنكي دحي وهبر يونس كرهانة وإسحاق خالد جامع أحمد دعالي قدوميها هيدا شغالها دولته وسعد موسى وانا نوح إسماعيل مسؤولين تيومات مدحوينها جمهورية الصومال لان موسى بيحي عبدي وحلكا ومقعابي كواسي أي كلاهاين يولي ميلها يكسو جيدان sidoo kale guud ahaan wadarta uu madaxweynuhu kala siiyay ayaa ah in beesha dhexe ay isaaq magacaabista maanta ay ku lahaayeen 19 xubnood halka beesha galbeedka Soomaaliland ee Samaroon ay 3 magacaabista ku lahaayeen bariga Soomaaliland dhulbahantu 2 ayuu lahaa Gabooye hal buu lahaa Warsangeli Eber Ciisana Eber halka kala socoteen waa Mustafa Show aniguna waa Mustafa kulantii dambe intaynu ku kulmayno barnaamijyo kale waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo fi amaan Allah isku day inaad ka mid noqoto kumaamka kun ee saaxiib ee halkan aanu degal wadaagta ku nahay barnaamijkana aad like garayso isla markaana aad subscribe saarto si aynu mar walba halkan uga wada socono mahadsanid